Dowladda Iran ayaa goordhow la soo baxday gantaalo culus oo ah nukliyeerka, iyadoona ay ugu talagashay in ay dhulka la sinto deegaanada Israa'iil ay joogto. Sida goordhow ay daabaceen warbaahinta Iran ay leedahay iyo kuwa kale ee Bariga Dhexe ka howlgala, duqeymahan iyo weeraradan Israa'iil ayaa jawaab u ah kadib markii ay sheegeen saraakiil ka tirsan dhanka xafiiska Ra'iisul Wasaare Netanyahu in ay qaadeen weerar culus ay ku naf-dhaafiyeen saraakiil iyo xubno muhiim ah oo ka tirsan dhanka Iran. Tehran oo ka jawaabaysa arrintaasi ayaa waxa ay sheegtay in si cad ay u weerareyso isla markaana ay duulaan cad ay ku qaadayso marka la eego dhanka iyo Israa'iil, iyadoo sidoo kale Mareykanka, wadamada Ingiriiska, Faransiiska iyo dalalka kale ee xulafada la ah ee kor ka ilaaliya dhammaantood ay yihiin kuwa ku fashilmay. Hogaamiyaha ugu sareeya dhanka Iran ayaa waxa uu sheegay in xilligan dowladdiisa ay bixi doonto jawaab cad. Hayaanka TV ayaa goordhow dabagal ku sameeyay warbixinada caalamiga ee warbaahinta caalamka ay ka qorta arrintaas, iyadoona goordhow war ka soo yeeray dhanka iyo Tehran lagu sheegay in gantaaladooda ay ku sii jeedaan casirliiqa Jimcaha maanta dhanka iyo deegaano dhowr ah oo ka tirsan dhulka Israa'iil sida xoogga ay ku haysato. Hanjabaadaas oo ah mid aan la yareysan karin ayaa durba waxay abuurtay cabsi xooggan, iyadoona loo badinayo in gantaalada iyo hubka Israa'iil lagu garaaci doono ay yihiin kuwa casriga, iyadoona Mareykanka durba uu bilaabay inuu farta ku fiiqo dhinaca iyo sidoo kale Shiinaha, Ruushka iyo dalalka kale ee doonaya in Israa'iil danahooda si gaar ah uga hor yimaadaan. Waxaa dhanka kale ka jira Bariga Dhexe cabsi xooggan. Dowladda Turkiga ayaa qudheydii difaac xooggan xiratay, iyadoona Ankara ay sheegtay inay ka hortagayso wax walba oo ka imaan kara dhanka Israa'iil. Madaxweynaha waddanka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa si cad u sheegay in uu dowladdiisa ay ka shaqeynayso dhowaan qaabkii ay u fuli lahayd weeraro culus oo ka dhan ah dhanka Israa'iil, islamarkaana xaaladda Bariga Dhexe oo xilligan meel adag maraysa loo sii fududeyn lahaa, taasoo ka dhigan in Mareykanka, Ingiriiska, Faransiiska, Jarmalka iyo dalalka kale ee xulafada la ah ay dhammaantood gacan ka taageen dhanka Israa'iil, walow la sheegay hubka iyo agabka kale ay wataan in ay dhanka Mareykanka iyo dalalka kale ay ka heleen. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa dareemaya culays xooggan. Hogaamiyaha waddanka Iran waxa uu sheegay in jawaabta cad ay bixinayaan ay ka soo muuqan doonaan goobo gaar ah oo lagu dhufan doono hubka aadka u culus ee wax gumaada, taasoo ka dhigan in Israa'iil markaan wadnahay farta ku hayso. Garoonka diyaaradaha ugu weyn magaalada Tel Aviv, caasimad Israa'iil, ayaa la soo wariyay in la xiray, iyadoo sidoo kale la joojiyay goobo kaloo kulan u ahaa bulshada Yuhuudda, kuwaas oo la sheegay in xilligan cabsi weyn laga muujinayo xaaladda ka taagan Bariga Dhexe. Si kastaba, muddooyinkii u dambeeyay waxaa sii kordhayay dhaqdhaqaaqyada guud ee ka socda dhanka Bariga Dhexe. Mareykankana waxa uu sheegayay in Israa'iil ay keli ku tahay weeraradaasi haddii ay gasho iyo haddii kaleba. Waxaa sii soconaya beegsiga iyo gantaalada ciidanka Israa'iil ay ku tuurayaan dhanka iyo dhulka Iran, taasoo keentay in saraakiil iyo xubno muhiim ah si tartiib tartiib ah nafta loo dhaafiyo, taas oo ugu dambeyn kuleel ka gaarsiisay dhanka iyo Tehran oo iyana markaan bilowday in ay beegsato saraakiisha Yuhuudda iyo xubnaha kale ee sirdoonka Carbeed, kuwaas oo dhammaantood sameynaya dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira qaabkii ay uga falcelin lahaayeen xaaladda ka taagan dhanka iyo Bariga Dhexe. Ilo muhiim ah ayaa waxa uu dhanka kale Hayaanka TV ka soo xigtay warbixinada iyo xogaha laga helayo dhanka iyo waddanka Yemen oo Xuutiyiintu ay ku xooggan yihiin, taasoo keentay in marka la taabto waddanka Iran intooda badan in ay bixiyaan jawaab culus. Waxaa dhanka kale cabsi xooggan laga muujinayaa safarka wadamo dhowr ah oo Carbeed oo ay ku bixi lahaayeen xubnaha dhanka Israa'iil maraya wadamadaasi, taasoo keentay in loo beegsan karo. Mareykanka qudhiisu waxa uu galay difaac adag, taasoo keentay in saraakiisha, mas'uuliyiinta iyo xubnahanba ay bilaabaan in ay sameeyaan dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira qaabka ay uga falcelin karaan arrimaha guud ee hadda ka jira dhanka iyo Bariga Dhexe. Baaruudda ololeysa, bunduqa la isku afeysanayo, dhaqdhaqaaqyada guud iyo gantaalada la isku rakibanayo waa waxa ugu weyn ee caalamku indhaha uu ku hayo waddanka ama Bariga Dhexe, taas oo muujinaysa xaddiga jawaabta Iran ay bixin karto. Mar qura ayaa la arkay markii Israa'iil ay sheegtay in ay beegsatay goobaha nukliyeerka Iran in ay dhanka Iiraaniyiintu ay bilaabaan in ay nukliyeerkooda iyo hubkoodaba ay diyaarsadaan
ka hor intaysan ciidanka Israel oo basaasiin kala duwan helaya aanay u beegsan goobahaasi gaarka ah oo Iiraan lama taabtaan u ah, taasoo keeni karta in xaaladda iyo xiisaddu ay sii xumaato. Madaxweynaha waddanka Iiraan ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in dadka dhintay ahaayeen saraakiil iyo xubno lafdhabar ah, laakiin waxa uu sheegay in dhanka Israel ay ka dili doonaan xubno kasii muhiimsan kuwa laga dilay, taasoo ka dhigan in saraakiisha iyo xubnaha kala duwan ee dhanka Yuhuudda ay cabsi xoogan ay ka muujiyaan goodinta Iiraan. Iiraan ayaa kol hore u jawaabtay Israel oo beegsatay magaalooyin kala duwan, sidoo kalena dishay mas-uuliyiin muhiim u ah oo weliba marti ku ah waddankooda, taasoo keentay jawaabtii Iiraan ay bixisay in ay ilaa haatan Mareykanka ay kasoo kaba waayaan. Waxaana wararka soo baxaya ay tilmaamayaan in ay socdaan dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira dhanka siyaasadda ee dhanka Bariga Dhexe. Mareykanka iyo dalalka kale xulufada la ah ayaa waxay dhanka kala wadaan dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira howlaha socda, iyadoona saraakiisha iyo mas-uuliyiintuba ay durba bilaabeen in ay sameeyaan dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira qaabkii howlgalladaasi loo fuli lahaa. Muddooyinkii u dambeeyay waxaa dhacaya howlgallo xooggan, iyadoona dhanka Iiraan ay sheegaysay inay ka feejigan tahay weerarada uga imaan kara dhinaca Israel, taasoo keentay in ay cabsi iyo dareen weyn ay ka muujiyaan xubnaha kala duwan ee dhanka Iiraan ay hogaaminaya. Waxaana wararka soo baxaya ay tilmaamayaan in ay socdaan dhaqdhaqaaqyo iyo abaabul kala duwan oo la xiriira dhanka iyo waxyaabaha Israel ay markaan ka sameynayso dhanka Bariga Dhexe. Hayaanka TV oo isha soo mariyay warbixinadii ugu dambeeyay ee lagu daabacay dhanka warbaahinta, gaar ahaan telefishinka Al Jazeera, waxaa ka muuqday Iiraan iyo sida ay ugu hoylan tahay qaabkii ay jawaab cad uga bixi lahayd howlgallada ka dhanka Israel ay ka sameeyeen deegaanadeeda, iyadoona ugu dambeyn markan cabsida guud ee muuqata ay tahay mid muujinaysa xaddiga awoodeed ee howlgallada iyo sida ay wax u dhici karaan, taas oo muujinaysa in waqtiga iyo waayuhu uu kala saari doono dhaqdhaqaaqyada guud iyo sida jawaabta cad looga bixiyo. Hayaanka TV waxa uu diyaar u yahay inuu idiin soo gudbiyo warbixinada iyo dhacdooyinka kala duwan ee Bariga Dhexe iyo guud ahaan caalamka, iyadoona markan arrimaha cusub yihiin in Turkidu ay si toos ah qayb uga noqonayaan xiisadda ka taagan Bariga Dhexe, si looga jawaabana ay tahay tallaabada ay qaadayso xukuumadda Ankara mid feejigan oo ay ku doonayso in ay ku sameyso dhaqdhaqaaqyo guud oo ay ku dilayso qorshaha guud ee dhanka siyaasadda ee socda, taas oo keentay in xiisaddu ay kasii darto islamarkaana ay gaarto heer ka sareeya sida maalmo ka hor arrintu ay ahayd. Wixii warar iyo dhacdooyin ka soo kordha baahintiina tan xigta Hayaanka TV ku daawo.